السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي آدا إذين سلامة سو دوادا مركلة إن كنا سو دوادا إن channel كيغان إيه page كان إن سهيبة بتقص ما أنت قف قيمة بدن أيا إذين ودا قف كلام معها ولا شيء واي نصر حسن نصري صوم طبعا ضد بدن إذين كمد واد قرنا إنسان نصر سو دو وما سنتهاي سهيبة بتقص ما شاء الله مدان كلام مقنعين دور 8 سنة ما شاء الله هدي أنا قبضني سبحان bal ka waran walaalay dhowr iyo 10 sano waa naga tagtay dalka Mareykanka aaday hadda noo soo laabatay bal ixsuusi meeli aan aniga adiga fadhiisan jirnay iyo waxyaabihii iska bedelay yaa marka hore aad ugu faraxsanahay inaan maanta ku arko ma sha Allah barnaamijkaaga aan kaagala qayb qaato wax badan anagoo kala maqneen farxad weyn ay ii tahay ma sha Allah mida qiyaasi kara maahan aniga ay suurtageliyaa mahad iskale ma sha Allah alxamdulillah نصر واحد بدنا أنا أديك مجالنا إسلا جوجني أو متقنا أنت عند إسلا جوجني كلية ما هي ضد وحين صاحبة إلا إيو واجا إلا يهدنا ولس صاحبة ما فهمت ما شاء الله أو أن كل حرن هذه هذا وفرح سنة أنا channel كيك نقطة إن أد متقنا كسر مقطع أنت فرحت جوني لفتر كيف بقيتها إن نصر ونوصل لعبتين نيروبي وكسول لعبتين بدنا marka adi iga maqan tahay waxa xasuusan jiray meeshii xasuusata anjeer daafida ka cuni jiray walka kita weeliyo hadda nasri isbedelay hay samada badan ay bedeshay malaha waa yaad marka aragtay qurux badnaatay hay ma sha Allah xasuuso badan ay noqonaysaa hay especially Andalus Slimon ya ha siba kala bal maanta waxba falanqeynayna barnaamij sameeynayna adduunyada ka sheekeynayna horumarka ka sheekeynayna ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah هو نصر هوية نقطة دي أنا نصر حقيقة تكتي جبرة أو كالا أرك هذا كالا أرك باتهاي لكن وحائس بدلي نصر جبر هي ذو هذا نقطة ما تقانا هوية صدقنا مردو نقطون إلهي كرسي إن شاء الله نصر وايرتها يا أصحابته ولا إن صدقوا وايركان وتقرأ إسكا كفت منايا مركز نصر إن مريكان كاتكتي إن مركاتكتي وحكسون هدي يعني أذكر سلام هروي الشيء ودتك الحرماء هينو ما شاء الله وإسكا ورقبنو آذان إسكا ورقبني بل إيجا ورا مركا حاجة تكتي في الشذا دي سيدا وها حالك horta Mareykan marka tagay wadan waxaan ka tagay aan ka shaqeyn jiray aan ka urdi jiray horumar badan aan ku fikiri jiray wax badan waa ka ogtahay wadan waxaan tagay markaan tagay nolosha bilowta meel aan la qabsanin iyo meel aan ka wada la qabsanin isku mid maaha sax waay waa inaa barataa gaariwadadii waa inaa barataa bulshadii waa inaa barataa bey'adda sida ugu noolaan lahayd iyo sida uga bixi lahayd marka aan meesha tagay alxamdulillah waxaan isku day inaan iskuul aado inaan shaqo aado shaqaan bilaabay waxaan isku day inaan gaari ani aan leeyahay gato ma sha Allah gaariga kartideeda waa leedahay kugu ogahay ha gaari inaan gato inaan darawalnimada barto inaan iskuulka aado inaan shaqadii aado inaan isku day laba shaqo ka shaqeeyo si aan gaarigaas u dhameyn lahaa kadibna in aanan cidna u shaqeynin oo ani aan qof iskeed u shaqeysato entrepreneur ah weligay hebin jiray waa ogahay taas waxyaabihii aan ka sheekeysan jirnay ka mid tahay ha alxamdulillah ilaahay ma iskale soo markaan shaqeeyay kadib waxa ii soo baxday inaan qof shaqeyn karo aan iskeena u shaqeysto maxaa kugu dhaliyay nasro waa xaaladaha waa la socdaa balse waxaan rabaa qisadaas aad aan u jeclahay ma ogtahay aniga markay dhacday baa ogsoonaa balse dadka laakiin dadka because dhiirgelin ay u noqonaysaa dadka waa maasantahay horta markii aan gaarigii iska dhameeyay lacagtiisii ayaa waxaan is dhahay business lacag ku abuurtid bal yara bilow adi cidna ka qaadano adi jeebkaaga ka keent dhididkaaga ah company ayaan shaqo u bilaabay waagii qarxi Paris dhacayay shaqadii maalinkii ugu horeysay markaas saa u tagay saa markuu ninkii managerkii arkay uu xijaabkayga weyn dharkayga waaweyn u arkay wuxuu u dhahay company-gii ku keenay ayaa wacaya 12 saac shaqeyn lahaydna lacagteedii waa lagu wada siinayaa soo bariha imaan adiga yaa waaya bas wiil waxa jira walaalkay jeclahay oo la taliyay ah qof walba qof la taliyay ah qof walba iskama socdo aragtana waa sheekaysanaa soo ibsaana sameynaya qof walba qof u baahan yahay walaalkay geeda taagna gaari intaana furan de wixii meel inaa u socdo marka fikir waxa ka fikiraya sababta qofka 9 months ku dhashay 9 months ku dhashay wuxuu ka weyn yahay malahan aqligaas iyo timekiis u saamaxay mooyaan walaalkay waxay maxaa shaqada ma gelin miyaa u dhahay shaqada maxaa galayaan dhahay in la soo buriyo ku sheegi kara markaas wuxuu igu dhahay don't worry imo
youtube markaas bilaab wuxuu dhahay anaa ku caawinayo youtube ka kala shaqeynaya dhown wari shaqo kale waa helaysaa markaas waxaan guriga kuma soo noqonayo markasta walaalkay waa saxsiisnaa guriga kuma soo noqonayo at least anoo ra'yi wato وين يوجد جرتي هنا إسكي وشقيستو عمتدي إلهي برينا لكن وحاس لهيدا وح إسكو أتليست وح إسكو أروري أتليست وح لطعمان كرب اللهم تاس ديري جلسة مركا ولا لك وحيدا وسامين كرتا أنا قرب كاغا قف كادو منتلي كاسبوت كريو فيزيكالي كوفو ضاني صح وان بحي دكان والما لا ينتجي أبا كلمات الشنن هو كلمات الشنن أنا وحاني نصر سبرايز كدي أنا I love سبرايز وحكستينا سبرايز كدي يا جعله وقول ما دانتي بور بان soo gad sokor baan soo gad saliid baan soo gad wax kasta oo de baking lagu soo gad bas ma aqaan qofka u geelna meesha geelna ma aqaan meesha ka bilaabo waxa adiga soo dhajisa cunto inaan kariyo waa inaan kariyo ilaa banaanka la istaagay marka laba gabar ay jirto gabar oo xaram saaxiib ayeen oo isla shaqeyn jirna Suudaan magaalada dhan labadaas ka aqaan iyo family way joogaan laakiin dad واسدي كرم هذا كاغ سو هريين كونكشن waa ka heli doontaa ma haysan hodan iyo xaran labada waa ka salaama inta ana love qofka wax u sheegay oo support xataa haduu ku dhaho qof aqana connection kugu xiro wax loo dhiga ma laha way soo adeega guriga imaaday aabay hurdaay oo soo kacan ka soo wuxuu dhahay ma shaqadii kasaan ma shaqadii waa laga soo buriyay marka soo wuxuu dhahay insha Allah shaqo qeyr qabta heli doontaa waxba ka walwalid markaas waxaan aab waxa iigu duceysaa ilaa hadda waa dhaha waxa iigu duceysaa inaan iskay u shaqeysto inaan dadka tabaruco inaan waxa aan dhididkay ku shaqeeyo ii hirgalaan insha Allah oo dhaha markaas wuxuu i raacay dhib ma laha shaqada laga soo buriyay nursing school ad markaas waxaan aab hee hobigeyga inaan mira dhaliyo aan jeclahay waxa aniga aan jeclahay inaan ka bilaabo ayaa always needed tahay soo adina nurse ila jeceshay inaan isbitaalka shaqeeyo laakiin aniga waxaan rabaa xoogayga waxaan ku bilaabay Mareykan markaan joogo 10 sano wax la taaban karo inaan sameeyo ma hubtaa wada yes ka aheed waa sameyn kartaa wada walaalkii meesha cuntada ku sameeyay gabadhii horta waxay hodan salaamay hodan reedalas waa walaashay لسمه وعلى كلاسم كم ورقة ولكن قفك حسوس وإنه كورة بقى مركز تأود عيسى وكام قيا هذا وحنا ما قاعد يجلس ورسيه ما تقعنا قف ومعنا كرنا يبسكوا الدواء يجوا جيس هاي ترى ما فاميلي هنا أو أرلينتون تكان كله عن كوجينا ما هذا برودكت كوسمتيك أنا الله يا كريم أنا صار إيه قدا ماشي هذا لو قدا بس قبل يحط رقوص ونقنايا بسكوت كويس كده بالدوين بسكوت كان دوبي واحد حري غير الله سيجاري ما ودين مكاس waxay tiri ana ku imaana micna gaari shaqada guriga micna haaway fog magaalada way haaway badan tahay ma tagi kari gabar way imaatay hal maalin ee iga qaatay macmaanki waa israacna GPS sida gaari loo wada fiirsan meeqa Mareykan jooga markaas sanad 13 taga 14 waa markaas way tustay waa sameyn kartaa nasir way dhiirigelisay meeshii geenne macmaanki laga gatay lacag yar iiga soo baxday kama harin maqaayad salaam la dhaho oo meeshaas u dhaweyd waxaan dhahay ma iiga soo dhameyn kartaa ninka lambarkiisa si ana ka dhameysana ninkii lambarkiisa la siiyay waa la xiriiray ayshkii waxa u geyn jiray 2 habeenimo si suuxay u gataa raacda ayshkii bilaabay saa u waday waa fikir hadana waxaan dhahay ka waran opportunity kala daaraadisid gabadha xaram aan la hadlo oo Suudaanta Frank waxaan dhahay xaram warehouse ka shaqeysaa oo dad badan ku xiran Soomaali ku xiran كورن عشرة هذا إني سكر ماشي إنه كوكان لانش بوكسيد يرير أو كنت حاب أنت دياري وبريس كي سلر كي هيلب كي الدنيا أنت جيس كسر عن قاعدة وجينا لينك إيسو حرتي ما شاء الله العاقة كسمين هذا نوع فكر تراجليد حيسين يرك قبل أذر كذا وحي يسميه فلاي يرك كويلش تراجليد أو مقالة ودوا وجيا كتب عشكي أوتكي موفدي وحي انت الدياري يمكن تراجع معنا aan boqsi ugu xiro u geen jiray ana alxamdulillah lacag fiican agsi wana isaga baahnayeen cunto sababta dadka taraaglayaasha waxay maraan meel ma taqaan aan balhayn cunto Soomaali maqaayada dad ajaanib ay leeyihiin alxamdulillah way support galeen qof kasto Soomaali businesskiisa waaga support garay waa mahadcelinay kadib ayay okay marka soo aado Mareykanka soo tatawacay waxaan ina ii duceysay raba
oo haysa kugu imaado adna aan kugu heliyo anigana aan uga shaqaysto sax markaad dala saartaa inay ka soo wareego oo Columbus maadaama Soomaalida ay ku yartahay Soomaalida ay ku badan tahay inta dalas ay ku yartahay markaas ay wixii ku ducay wax ma arkays insha Allah waxa uu Ilaahay malabkaaga dhigaa ma sha Allah magaalada oo hay markaa imaaday kama xishoon hadda waa taqaanaa Soomaali adoo ina hebla ah ma maanta ma fay jikay iyo cunto karinay ana ina hebla intee geenay meel yaa waa ina waxa hobbigeeya iyo horumarkeeyana ka fikira sidii alaabteedu waxa ku karinay dhan gaariga ku soo shubtay wadada soo koray oo haya imaaday cuntadii aan bilaab cid kama aqaan social media on Snapchat dadku waxay xanaayeen Snapchat sidii maxaa ku bilaabay cayshkii waan karin jiray waa duceysan jiray dadkana aad ay support gareeyeen ma sha Allah cuntada markaa bilaabay hadana isqurxintii spa gabdhaha spa oo sameeyo way yaqaanaan reer Columbus spa gadana wada yaqaan sax guriga ku sameeyay dhar keenka keeni jiray meelaha dharka keeni jiray ودوبيا دharka dalban jiray waa sii gidgidi jiray kadib hamigay wuxuu ahaa inaan qurxin company ani Allah ilaa lacag kala keento soo adoo waxba haysan wax ma sameyn kartid sidii aan markaa aan lacagteeda markaa helo isku aadistay alxamdulillah muufada iyo aashkii gacmahayga laata markaa arka garaafada iga taalo wallahi waxaan dhahay alxamdulillah horumar weyn aan ka sameeyay marka gabar kasto nafteeda oo inay amintaa sax inay wax kasta sameyn karto marka sidii aan ku sameeyay horumarka gaaray mala waxa inta kariyo aan Ohio Columbus wiil masha Allah dhaayaan u geen jiray magaalada ku cusbaan cid kama aqaan ceeshka isaga u geen jiray kadib 200 xabo everyday gurigeyga gabdhinta imaadeen iga gadan jiray gabdhahaas la'aantoodna qofka maanta ahay ma ahaadeen aad u mahadcelinaa masha Allah nolosheeda meesha ka soo bilaabtay dawaanku ogaa kartideedana waad leedahayo Nairobi markaan joogno xitaa waxyaabo badan bad isku qaban jirtay adigoo wariye ah daawooyin baa gadi jirtay kambaniyada daawo gadgado inta xayeysiin ma raadin jirtay waraasoo yaani shaqo badan marka nasra maanta hadii la dhaho waxaasi wax ka badan ay sameeyay inaan dhaho waa run ma ogiye marna ma taqaana uma qaadanay inay iska ahayd waxa uu ma taqaana kaftan iska in aad aan kuugu faraxsanahay so proud aan kuugu ahay because saaxiibadeeya tahay horumarkayga waaye aad aan ugu faraxsanahay meesha amaanta taagan tahay nasra marka meeshaas marka sheekada ay inoo marayso kadib day nasra waa la guursaday عبار كدب سدح سنة كدب بل كورن شقدا يهوي يعني ماذا سببته ودن كأجوك تدي ودن وحكتك تيو أنتي لليه ساقة وإسلامها ماركنو جاردية أو حير لسكسينايو ودن وحاتك توح والباب أديك حاجة كل آتهاي وأد وح والباب أتسمين يسوع بل كورن كان هرتا قبلها قالوا حنقول طلنا مركز جورسينيس حكوا جورسين الهني حكوا جورسين البيبي حكوا جورسين الحنتي حكوا جورسين المجع نمبر 1 قفك اسبرتان أظن أنت فيرنين استقارتكم قفك سوحية إلهية مركز كوسو كلا صارها إله ودو خير يوجرو سهل حدو شرعية هنا وده سيجي اللي دعاءنا ومهم إنه كنت عيست قف دين له قف دقن له قف وناكسن قف أنا قروح ذا مركز على ذا قيمة مركز على ذا يعود مركز على ذا كورة عينة مركز وحكي جد عيسى كرت ما أركي كرت قف وحنا هذا ما أوجان كرت إلا ما إلهي أوديس وأكيد استقارته كرت مركز وحاهي ليس إلهي قف كودورة طبعا قف هم لها تاي قف إنه وحبر تربتها تاي قف إنه شقي سربتها تاي قف هرمرك ما أنت سو جاري حدي هذا جعلك يهنتدي جاري غير أنت أرتب ما حلقة شيء أنت كوما سيسعنت لكن مركز دعيستد وحاهي ليس قف نلاشة كوه فانسن كوه تاجره كوه سبوت جريه هذا علمي ماذا حق دين تنا كديسن قف كدو دين ليه قيمة دمر كو قرنايا وانا جيدنا وقرنايا وحنا نكون مترسو انت يرى ليش كان سنايو ثانا كو سمينا حجك كو جينا قروح بدنا كو كذا جاري قروح بدن everyday ما ترى هذا معانك ودنبيا لكن انت كهرسو انا قفك كورسانيسيد حداربت اني وحكو هيرجلان إلهي أو تلسارت كدب مركب جورستد واشقة ستا بزنس على هذا هرمرة سميسي قف بوجعلي هتا حكفة إذا سن قف كاس جورستين كو قيمة وناج وسجيهاي كو حشمة قف وسجيهاي مركز إلهي أديجنا وكوسي بركاني قف كاس إسلنا وشين
وكو عبيدني قف وحو إلهي كاغا دغي وكون دعاء markasta ilaahu ii barakay ilaahu ii wanaaj adi huwa faanan dadka kale adiga naftaada markasta waxa ula doodaa ama ula dagaalantaa in aadan adi qof xun noqon ana alxamdulillah markaan guursaday cabsi horta waa ka cabsan jiray guurka waxaan dhihi jiray markaa guursatid horumar ma taqaana iska fadhiisataa guurka ama guuriska fadhiisataa waxaan oranay ka kala istaagaan dadkana caawinaysa ku caawin doontaa hay horumarkaaga ama ka tagta markaas dadkii Soomaalida ayaa ku sii waalay maanta qofka tahay hadaa guursatid ma ahan doonto ilma markaa dhashid waa fadhiisan doontaa hanin Soomaaliya nin qof kasta ayaa nin u baahan maanta daa anaga nin u jiri lahayn ana maanta dugma maadeen waa isku baahan yahay qofku inuu taas aaminaa markaas uu guursada soo ilaahayna uu markasta uu duceystaa waa guursaday anigu cabsanayo horta intaan guursanin waad ka joogi doontaa intaan guursanin wala aragto waa inaan ninka ka qabataa qof walba qorshuu leeyahay waa inaan ninka ka samaysaa waxyaabihi ugu badan maxay waad la yaabtay ana horta markaa dhahay waa guursanaa masaajida ku dhiganaa qaar waxay ii saareen maxaa keenay in ayadoo qof saas ah gabar ah saas oo mataqaanaa inay waxay iga dhigeen qof chip ah oo guurkeedii noqday mid si fudud ah ku bixisay because noloshaada adiga guurka markaa dhigtid midna aduu kuu dambeeyay midna inta dadka bariiska cunaan kaaga tagaya muhiim ah taas muhiim waxa ah adiga waxaan u sameynaysid inay sakaa aan show inay ka tahay li wajhi lillah intee kun oo qof oo maanta markay cunto cunaan dhargo oo arooska inta wax yar ka taabtaan ka tagaan intee maanta qof markaa wax siisid caloosh qalbiga inii kaaga duceynaa soo qorshay wuxuu ahaa hadaa guursanayo ilaahay calafkeeyo qof qeyr qabo igu soo aadiyo in arooskeyga masaajid aan ku taas waa ogaa taas igama sheekeynayso dadka dabcan daawanay way ku cusub tahay laakiin aniga waxa xustaa inay soo wacda igu tiraado Suhayba ana arooskeyga masaajid ma ogiye meel kale maya waliba waxa tiraado wixii kalena dadka waxa loo dirayaa qaxootiyada ayaga ay cunay dadku waxay ku noqotay surprise maxaa keenay maxaa gabadha uur bay leedahay maxaa loo dadijinayaa maxaa waxa ma ugu horeeyay Soomaalida horta sideeda marka waxa sameeyay iskaga gashay waay maxaa ku kalifay anaga waxaan rabaa inuu Ilaahay guurkayga barakeeyo hadii waqtigu Ilaahay igu tala galay inaan nimco iyo wanaag iyo farxad ku qaato soo markaa guursaday shaqadii bilaabay arooskii dhamaaday hadii ninkaas ku soo haraysid dhabtiya imaanaysa isku soo horjeestinaysa meesha ilmo ma joogaan qof walba qofka kale fiirina markii shaqada ka soo baxo abtiga wuxuu jiray foora la gaaray qol uu qaba guri dhaqso aad markaas guriga aad maxaa qabana hadda waxa qabanaysa ana weydiin guriga tag ilaa waxa ugu jirto inaad shaqeeyo shipping ka sameyn la xirxiro alaabta diyaariyo customerkii soo waca la hadlo telefoonka maanta uu soo dhaca odayga guriga jooga shaqo ka imaada ama guriga dhex shaqeynaa waaw aniga waa isku wareer maxaa sameeyo qof ala shaqeysta ma hada qof weydiiso qof walba wuxuu ku dhahayaa nin ha imbaw garan nin ninka hada maanta barti saxanka hada maanta dhan cunto ilaa cuntada waa soo sawiraan wax ka kanaysan nimanka lagama badbadiyo qof walba nin anigu kibir waa dhacday qalay dhah waa yaabi jir waa fikri jir maxaa qalb maalinka dambe hooyada waxay tiri wadada mar hada mar weysatay adig ku taala wata anigu soo waxata Suhayba tib isii walaale waa wareersanahay marka guurku haduu saheelin daas oo qofka in baawrga dhiiri geliyo niyadu u dhiso waa sameyn kartaa dhoo 5 minutes wax kasta ku jabaya kadib ilaahay nimco keenay ilma aad yeelanaysa hormoonka gabadhu isbedelaya dabeecadda dhanaa isku dhaxyaacayso hadaad helin qof familka ama qof ehelka ama qof alxamdulillah hooyadii soo support gareysay walaalay wiilashii la dhasheen abtiyaashay ayeeyday marka qofka markuu guursado gaar badan u baahan especially markuu guurku cusub yahay ilaa dadka waxay dhahan 3 sano ugu horeysa waa 3 sano ugu adag hadii markaas la moodo waa marka shaqadii bilaabay way guursaday gabadha dhalay alxamdulillah hooshii way si yar adkaatay laakiin markasta maxaa ku dhaqaaqay adkaarta tasbiixda iyo support badan oo family gaysta because uu adkaane shaqadii freedomkii ilmihi ninkii haduu ninkaagina support aad ka helin nolosha xiriir ku noqonay marka alxamdulillah ilaahay waxa uu mahadinaya ducada aad duceystay wixii ku duceystay si alxamdulillah gabar kastana waxa kula talnaa qofna noloshaada waxa kala tashanin the only thing
kala tashanaysa waa ilaahay wax kasta u tala saaro ninkana duco unbuu wax aragti kugu noqonayo xoogna ma ahan inta u karisana ma ahan qurux kasta ku soo jiidanaysa taas way jirtaa laakiin wuxuu ilaahay ka baridid uu ku siin adina daacad oo ninka Soomaaliya lama kibriyana islaamaha gabdhaha markii la guursado ee la bursanaa especially dadka da'da guurka ugu horeeyay gabdhaha waa la dhiirigeliyaa guurka waxa kala kulmaysaa dhib waxa kala kulmaysaa farxad waxa kala kulmaysaa culays waxa kala kulmaysaa busy laakiin hadaa fududeysatid fududay ku noqonayaan qofka isla nooshihiin nolosha isla fahantaan oo aad maanta dhan dhiin heblo waxa haysataa heblo kana haysataa vacation heblo loo kaxay adiga adiga life kaaga waxa samaysatid ku dhaqaaq markaas life kaaga success ku noqona labadiina waxa isku garatiin isku afgaratiin oo isku nasro kulli hadda ganacsiga wali waad ku jirtaa waxaad soo saartaa mataqaanaa cream aad ma arkino ma sha Allah ii soo dhiibtay dhowr xabo waa kaaga mahad celinaa marka creamyadaas iyo hadda maxaa qabataa maxaa wadada ku soo jiro wixii kala Nairobi maad waa ka hadli doonaa bal ka waran horta creamkaas gadaa maska gadaa indhakuul lipstick waxa dumarka isku qurxiyaan lipstick waaba ii keentay tanada ku warsano kale ma sha Allah aad indhakuush ii marsano kale sax marka alxamdulillah cosmetics inuu ku jira waana jeclaa waxyaabo badan inaan insha Allah sii galo insha Allah hadda Nairobi aan noogu timi ma sha Allah waqti anaga nala qaadatay aad u mahadsantahay inaan soo xasuusato mataqaana arooskaaga inkastoo aan rabay inaan imaado laakiin laftirkay waxa ku jira dadka waqtiga Ingiriiska aad ma arkiro insha Allah waqti kale noqon laakiin insha Allah waa idin imaana haduu Ilaahay yiraahdo marka Nasro Nairobi ayaa timi waxa soo bandhigtay TV cusub oo la yiraahdo Somali Women TV bal TV-gaas aniga horta Suhayb aan shakhsi waan ogahay halka uu ka soo bilowday waa xasuustaa maqaayad halkaas aan fadhina aan jirtay xafiiska cuni jirnay maalin walba waa ila qaybsan jirtay waxyaabaha aan kugu jeclay wali aan saaxiibku la ahayna waxa kamid ah dadka horta waxa tahay markay dadka ay la fadhiistaan jecel in horumarka uu ka sheekeeyo wanaaga dadka mataqaana mar walba uu arko dadka ku hooseeya inay caawiso waligaa asaas ahayd adoo xitaa waxba haynin xitaa asaas ahaan jirtay marka Nasro haddana one of the riyooyinka aad ku riyoon jirto TV-ga aha oo dhowr iyo 10 sano aad ila qaybsatay oo anigana aan ku dhahay Nasro waa sameyn kartaa waqtigeeda markuu imaado yaa daafurtay maalin dhaweyd bal iiga waran TV-gan waa maasan tahay walaashay soo support gareysay waa sameyn kartaa qofka ku dhaw kan lacagta ku sii laakiin qofka markasta ku dhiirigeliyo ha ka seexanin waa sameyn kartaa wax weyn waay almost 10 sano ka hor waa sax sidii idin sheegtay hamigaygu ahaa wuxuuna hamigaygu ku ahaa inta hadda aan ka soo sheegay oo guurka hadii ahaan lahayd wanaaga hadii ahaan lahayd ilaahay in la xasuusiyo hadii ahaan lahayd asturnaanta hadii ahaan lahayd wax kasto hadda aan ka hadalnay iyo sidii hadda Zuhayb markasta page-keeda iyo barnaamijyada YouTube ku soo bandhigto waxyaabaha ay ka hadasho waa waxyaabaha anaga u baahan inaan isku wacyigelin so waxay ugu dhiirigeliyay TV-gaas inaan furo in laga hadli karo qurxinta in laga hadli karo cuntada in laga hadli karo diinta in laga hadli karo dhiirigelinta barbaarinta guurka gabar kastoo guursanaysa waxay baahan tahay qof hooyo oo ilmo soo dhashay nin soo guursaday nolosha wax badan soo martay kaaga sheekayso markaas waxaa helaysaa dhiirigelin badan marka waa arkaa Suhayb iyada wax badan page-keeda ka hadlayso waa jeclaada barnaamijyada xiisay ku jiraan because qof walba u baahan maskaxda qalbiga ma la koriyo laakiin maskaxda la koriyo maskaxda way u baahan tahay wax fiican inay dhageysato soo qofku maskaxdiisa u korto qalad hadii maskaxda ku jirto xitaa way ka tarmaysaa marka taas ay ugu kaliftay in barnaamijyo badan oo dumarka quseeyo lagu soo bandhigo dhinac kasta ilmo korinta anaga ilmo waa iska dhalan laakiin wax badan kama naqaan ilmaha oo yariirin waa u baahan daraan ku wadiina sidee ilmaha lagu koriyaa sidee hooyo fiican loo noqdaa sidee ilmaha diinta lagu baraa sidee adiga iyo ilmahaaga iyo ninkaaga isku wax u wada qabsan karteen waxyaabo badan looga hadlo ee taawa TV-ga taas ugu kaliftay ma sha Allah beeskiis wuxuu ahaan doonaa xamar miyaa muqdisho xafiiskana waaba ka furteenba ilaa iyo Mareykan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo Nasro dabcan dad badan bay hadalkan dhiirgelin u noqon doontaa qofka inuu meel hoos ka soo bilaabo oo meel koran uu tago oo aanan la dhihin anigoo mataqaana saas ahaa in hebel ahaa anigoo laandheernimo meel kuma geynayso ugu dambeyntii Nasro maxaa ku soo gabagabeynaysaa oo gabdhaha kale ee ku daawanaya kulle wax badan waa u sheegtay hadii ay qaadanayaan ay mataqaana ku dhaqaaqayaan qof walba hamiyuu leeyahay wuxuu rabo maxaa ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa
gabdhaha inay isdhiirigeliyaan inay isjeclaadaan in gabar kasta walaasheed waxa ay soo martay suu ilaahay ugu ogyahay u sheegto maanta ani wax badanaa soo maray kama xishoonin waa soo bandhiga in waxaa laga yaabaa gabar sideedoo kale haminaysa inay ugu dayato inay wax iga qaadato in gabar kasta waxa ay martay si nadiif ah oo aanan cover ku jirin aysan u sheegin nolosha ma jirto qof inuu kor ka soo bilaabo horumar gaaro waa soo jabee waa soo oynay emotional aan noqonay waa ogtahay waa dareemi karta qofka qof aan emotional noqonay horumar ma gaaro caqabad badanaa la kulmee dhibaa la kulmee waa inaa markastana ilaahay ku xirnaataa oo asturnaantaa oo wanaagga lagaaga dayda maanta haddaad noqotid qof wuxuuse ilaahay raali ka sameeyo nolosha ma kuu qurxsanaanayso markasta waxaa ku dhalaanaysaa waxaa kugu dhacaya depression anxiety kugu dhaca waa walwale walbahaare marka always daarabti inaa wax badan heshid ilaahay u tala saaro maasha Allah asturnaanta in la isku daydo maanta gabdhihii waa inay waxa wanaagsan iskaga daydaan haddii xagga diin ahaan lahayd iyo haddii xagga aqoon ahaan lahayd marka insha Allah halis dhiirigeliyo gabdhaha ha isku xirnaadaan gabar walba gabadha kale walaasheeda dhahdo walaal macaanay maasha Allah kugu daydaa ha farxad geliso midda kale horumarka gaartana dee kibir iyo isku yeelin gabar kasto gabadha kale walaasheeda xagga qacmad aniga la-aantood maba ahaadeen gabdhaha Soomaaliyeed ayaa heerkan soo gaarsiiyay maanta day support gareen lahayn haday wax iga gadan lahayn haday muufa iga gadan lahayn way awoodaan kasta inay muufa karsato haday shilinka gadaay iga gadan lahayn maanta horumar ma gaarin maasha Allah badanaa marar badan waxaan dhahaa saddex baa horumar lagu gaari karaa mid waa inay hanti waalidka ay kaaga dhinteen waalidka taajiriin ahayn markaas koraa ka bilaabaysaa hoos kama bilaabaysa tan kale ku xigtan waxaa inaad tuug noqotid tuugna diin islaamka ku ogolaba ma aho sax ma noqon kartid tuug ama inaad sida dameerkii oo kale u sheeqayso oo meesha aad u socotid aad hiigsanaysa aad gaarto waa saddexdaas marka waxaan dhahayo saddexdaas qofka noqon lahayd ilaa kan koowaad choice uma lihid laakiin tuuganimada iyo kan inaa shaqaysato ay tahay adaa choice u leh ilaan hanti haduu aabbahay wayda kaaga dhiman choice ma lihid baadi ayaga ilaan shaqeynaya shaqo laga rabin ma waysan shaqeynin hantilaanay kaaga dhinteen marka anaga maadaama dad muslim nahay mar walba waa inaan qaadanaa kan ah in aan shaqeyno si fiican si aan horumarka aan hiigsanayno aan u gaarno waa taas kaliya marka badana ilmahayga saas ku dhaha taasa idin taalo ina si fiican aad u shaqeysiin oo aad dadaashiin si horumarka aad rabtiin aad u gaartiin marka waa saas hooyo wanaagsan taadaas waa maalmood ku dhahay suuheebo bal iiga sheekeen nolosha korinta ma ahan ilmo la koriyo cunto la siiyo dhar loo xilo hore socdaan maskixiin inaa korisid akhlaaqiyad inaa korisid inaa adiga role model u noqotid inay aabi role model u noqdaan sidee loogu noqon karaa ilmana waa soo kalsooni ku weydiinaya wax badanaa suuheebo nooga buuxo insha Allah waa in barnaamijyadaasna abeejkaa kusoo bandhigta sidii ilmaha loo korin lahaa insha Allah aad iyo aad mahadsantahay saaxiibtay walaashay Nasr aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan wada hadalno oo is hor fadhiisano oo channelkayga maaragtay ilaan wada hadalkay kala mar walba isla hadalnahay channelkayga aad ka soo muuqato bal asxaabteydana ay la bartaan walaashay Nasr asxaabta aad iyo aad idin salaamayna aad u mahadsantahay Nasr idinkana aad idin kaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad inoo daawataan waxaana jeclaan lahaa aadna idin kaga codsanaa insha Allah walaashay TV-gan cusub ee soo bandhigtay oo dhanka noqon doona YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo adiga baraha bulshada kala duwan ayay ku soo bandhigi doontaa in aad ila taageertaan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo aad ma santahay saaxiibtay waa ma santahay insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh